waxaanu maanta halkan isugu nimi golihii deegaanka ee Berbera aqlabiyadiisii waxaanu doonaynay inaanu ka hadalno arrin maalmahanba saxaafadda ku jiray oo lagu soo celcelinayay oo aad loogu soo celcelinayay inagoo aanu aaminsanahay anigu in hawlo badan oo culus qarankeena ay haystaan oo ay ka mid tahay bishii khayrka lahayd Ramadaan baynu ku jiraa dabkii masiibada ahaa ilaahay ciwad khayr qabaha ka siiyay inagu wada dhacay suuqa waaheen ee Hargeysa iyo abaartii oo aan wali inaga soo jabin saddexda hawlood oo culus inoo ku jira may wanaagsanayn in saxaafadda la isu soo fadhiisto laakiin maanta inaanu anagu soo fadhiisano waanu ka fursan weynay waxaan doonayaa inaan ka hadlo lacag aad loogu celcelinayay oo 10% ah 10% maaha horta waa ka yar tahay kulli dadka wixii cashuuraha iyo habka wax loo cashuuro ee dalkeena garanaya way garanayaan 10% magacuun bay ka tahay laakiin waa waxaan 3% dhamayn lacagta ay dawladda hoose Berbera ka qaadato customka heerarka interiga wax lagu cashuuraa waa 10 head 10 ka head laba ka mid ah ayay ku dhacdaa cashuurta MTGS-ka la yiraahdo dawladda hoose Berbera ay qaadato dawladda hoose Berbera ama deegaanka Berbera wixii uu ka qaato dawladda dhexe ama customka halkan ku yaala wixii uu ka qaato waa mid uu xaq u leeyahay ma wax sidii loo dhigayay Ilaahay ha u naxariistay madaxweynaheenii hore Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal rag waaweyn oo kulli duraya baan arkayo la cid buu wax u sii qariyay iyo xaasha inta aynu maanta ku wada joogno taariikhdu iyada isqortay isaga inoo sameeyay Ilaahay ka suko arrinta 10% ka markaan ku noqdo wax Berbera gaar loo siiyay ma jiree degmo kasta oo Somaliland ku taala oo custom lihi 10% kaasay ka qaadata roobka Ilaahay daa dhulka isku si uma wada helo marba meel buu helaa Berbera iyo bulshada reer Berbera wixii ay qaadato waa waxay xaq u leeyihiin xisaabna diyaar baan u nahay mid waxaan leeyahay bulshadeeni reer Berbera maalmihii dhawad hadlaysay gobolka saaxil iyo degmada Berbera waxa ka wakiila 23 nin baa loo soo doortay 13 nin waa golo deegaan 10 waa golo baarlamaan 13 ka nin baa hawsha ku filan hadaynu reer Berbera nahay waxaanoo cabaada iyo waxaanoo qayla ah la inoogama baahna bulshada rag baa ka wakiila magaalada bulshadu ha qabsato hawlaheeda iyaga u gaara shaqooyinkooda u gaar ah qabsadaan dadkana ha u daayaan ragga loo soo doortay ee ka wakiilka ah bulshadayada sharafta leh shaqadayada hanoo deyso degmooyinka la midka ah Berbera waxaan u soo jeedinayaa saaxiibada nahay ee golayaasha deegaanka loo soo doortay war ma yahay inaynu inagu si jawaabnay waxay hay dawladaha hoose wixii ay wada qabsan karaan degmooyinku iyo wixii ay isku biirin karaan inay isku biiriyaan bay ahayd aad baa u mahadsantii